barakeeyo isagoo aad u mahadsan waqtiga fiican uu siiyay inagu soo baqaado caawana bal hadda wuxuu ka xasuusan yahay qaybaha taariikhda bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan leeyahay oo aan leeyahay nin gaajoonaya baa la yidhi amba liqmada dadeji ama raamsiga tiyo taariikhdu aad ii buuxdo oo isku soo hayin fankayga iyo sportska iyo waayihii kale soo maray bal waxaan dib ugu noqonayaa Djibouti oo waxa laga yaabaa suugaan ahaanta markii ugu horeysay bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan leeyahay qaaliha laga noqdo dadweynaha daawanaya taariikh nololeedkaygan laga wareysanayo waayo waxa la yidhi nin gaajoonaya amba liqmada dadeji ama raamsiga saa waxaan u leeyahay fanka iyo sportska ayaa iska waaya badan marka waxaan ku darsado kale waayihii kale soo maray marka haddii aan dib ugu noqdo khadarow noloshii ugu horeysay iyo ficliyan ama jacaylkaygu uu ka abuurmay amba wadaninimada jacaylku ka abuurmay Djibouti ay hortay waan yaraa waxaan ku jiray malxamada 9 ahayd markii wiidiyo noodii ma garanaysaa Djibouti ay markaa wiitiri ay diiday marka waxaan ka soo qaaday inaan la yiraahdo hodan hargeysana waxaan ka soo qaaday inaan la yiraahdo haweeya marka taa lafteeda inanta dardaaran baan ugu galay aniga oo yaani inantii mas'ala ku siinaya inantii waxaan arkay inantaa hodan baa la oran jiray inantaas waxa dhacday inan asluubta iyay ahayd aan ku ogaa marka aabaheedna wuxuu waad garanaysaa wariyaa uu ahaa marka aabaheed hadduu wariyaa ahaa inantaasi anigu mar aan arkay oo hore ayaan qaaday dabeetana waxaan idhi inantii aniga u hanweyn ayaa maalmaha kamida iyadoo ay tahay goor maalin khamiisa ayaa u baxay meel la yiraahdo guudka waxaan arkay inantii oo nin cadaana intay halkaa gashatay dabeetana la socoto oo socota suuqa marka waxaan dhacday waan himbiriirsaday aad baan u himbiriirsaday waxaan dhinaayay miyaanad hodan ahayn oo illa baytay markaasaan oo ninkana muxuu yahay waa musiiba qabiibay markaasaan oo maxay isku tiin saytir waa fiyaanseeyga marka fiyaanseey anu ma garanayo laakiin waxaan u qasteedoon ninkan waxba naga dhaxeeya marka waxa dhacday dabeetana inantii sarbeeb baan sidii sarbeeb baynu lahayn hideeniyo dhaqankeenu wuxuu leeyahay xidhaale ama wuxuu leeyahay suugaan la huwiyo marada waxaan ku yidhi adoo hilib baruur liyo halab caanaheegiyo qarma ximiraad moodoogeeda lagu hamsiiyo hadhuur subag la cuni jiray hariko casaan iyo fuul lagu haraadiyo maxaa heedda kugu wada waxay tidhi hey dadba waa cunaaye waxa dhacday sarbeebtii baa hoos ugu dhici weyday anu waxaan leeyahay ninkan cad iyo dadka aan jisgaaga ahayn maxaa kula socotiiyey markaa waxa dhacday waxaan ku yidhi hodanay ka boodo garan weyda hadalkee sida hilibaan saafi adoo heesta wiilkii awgu ku baxayo idahaagu meel yahay gaalkan halabta weyn liya maxaa haybtay ganawaa heedha cidhibka kuu sulay waxay tidhi nin maaha waan la baxaa maaha aabbaa iyo hooyaday baa igu og maaha waar baandiyo qarracda hargeysa la qaba bay tidhi aad iyo aad baan uga xumaaday anigoo islahaa dee hoosta wax uga sheeg oo inana hiddo u ahayn haddii aan halkaa ku noqdo maangaabku yuu moodin in ay tahay gabadh laakiin waxa weeye waa wiidii ay tidhi oon doonayey inay noo tidhaahdo xorriyaddii Djibouti waa 59kii way inaga horreysay anigu markaa anigoo ku barbaaray malxamadii sidiis kaga jira ayaa 60kii ayaa Rio ayaa heesay igu soo martay markaa inantii haweeya ayaa dhalatay afartii cishe aynaan cidna ahayn ayay riyadaas igu soo dhacday dabeetana gaari baan ka soo raacay halkaas sheedaha markan joogay tuulaba igu soo dhiibtay ayaan inantii haweeya oo halkaa sheedaha joogta halka daloolda dusheeda ayaan ku soo baxay aad iyo aadna u xijaaban dabeetana intaas ay qabsantahay waxay tidhi aadan jaamac sooyaanow waa markaasaan ninkii gaariga jooji waar heedhe bal waa la ii yeedhay gaariga jooji tumaad ahayd markaasanta waa haweeya oo xoob siibatay markaasaan alxamdulilaah bal ka warran roobkii waa noo daay aad baanu u fiicannahay diintaa naga caweynaysa iimaanku qanshuhuna jooga mustaqbalkana waxaan ka yaabaya dooggaa soo baxay ilaa dhegta inuu gaadho mustaqbalkuna la socdaabay aad baan dabeetana markaa aan anigu u istareexay inantii waan la hadlay dabeetana waxaan ku yidhi inantii hargeysiyo doo xeerar ku dhalatee hadalkii ilaahiyo lagu habay qur-aankee higaad lagu anqariyaay inantii hadhuurkiiyo halab caanaheegiyo lagu albashay hilibkee hiddii awowiyo asluubtii habboonayd lagu soo hadaaqshay hooyadadu sheegtay dhiidhiibsobay tiro markaasay labada lugood dabratay waa hiddiyo dhaqankii inantii xanaqaadideedii tii sacab ku heestee hooba lagu tilmaamay madheedhkii hallaya iyo dhabaq hore ku yaallo haydhhaydh ku muuqdo soo hirkiisa midabada hurud iyo casaankii sareerayaallo ishu alaxsanaysiiyo hoobaan bislaatay hibe eebba keeniyo hadiyaduna siiyay hubaal waxaad ku nooshahay hawkar iyo oon iyo hanfi iyo kulayl iyo haraad dhunan lahaynoo beeraha ka hodano hadhaca iyo geedaha biyuu hoos maraanoo
aan kor lagu haraadayn hoygaagu wuxuu yahay nasashada hurdada wacan haqabeelka raaxada meel lagu habaayo harka gogashu kuu taal hantidaada weeye hoodyo nasiibbaad haweeyey ku faanto waxaad heedha joogtaa heegada korkeedu hablii adduunyada adigoo hormoodo qurux maad hambaynine wax soomaali laydhaa waa yani hormood aan ka leeyahay waa gobonnimadii ugu horraysay soomaali nin laydhaa calamku arkay oo kuma garanaysa adigoo hormoodo qurux maad hambaynine hu gobeedku saaro sharaf kuu hagoogo duca kuu hibeeye heedha waad u qalantaa habkan kuu ammaane hambalye salaan wacan hani iga guddoono hawraarta maansada haldhiggeeda fahantee hadallada runta ahaw hadafkana mid daacada heensahaagu waa nabad mid hanuunsan baa tahayoo hilimada sharciga iyo diinta heer ka gaadho dawyada horseedka leh ka habaabi mayside halse iga dardaarana hubiyo ujeeddada haybi garashadaado weedhaha habboonee kala haga adduunyada ha halmaamin weligaa hogga lagu ilduufo hala kuu gabbada iyo haydaarta nacab iyo ka digtoonow horarkii hooyadiisii dihatiyo shalay habaryartii cunay laqan heeg la kacayey haybaddaadu nuurlo hadduu kuga habboon yahay hamiga iyo guurkiye hanfadiya nin liitiyo kuma gayaha coogiye geesii hooda sheegtiyo halyey baad u joogtaa ilaahay nin hanado hooyaduu ducaysoon la habaarin weligii kugu beeg hoggaanshaah anna hiilka iyo hoo hareertaadaan taagno intan heedhe noolay inaan cadowga kaa hiro nafta kula heshiiye adna laabta igu hay ku dhammeeye heestee nabaaduune hooyo oo habeen wacan ku seexo hurdo caafimaad leh haddambiya ninkii nool kulan wacan haweeye baan inantaa markaa guuru fara lama saarin wax fara oo la saaray ma jirto markaa inantaasi sidaasi ayaan kaga tegey waxaanay ahayd 60kii waxa dhacday marka qadarow suugaanteeda aan israaxsado sheekooyinku hay dambeeyaane inantii hodan la odhan jiray waxa guursaday nin aan u ahayn kuf oo aan qiimaynayn oon hiddaheega aabbaheed hooyadeed halka ka timid asalkeeda aan qiimaynayn baa guursaday markaa inantii waxa gogol looga dhigay xajiin ka hadhay digada marka la xaadho waa xajiimood dabeetana waxa dhacday waa cadayood si ay ku dhacdaba waxa dhacday inantii rag baa u kacay waa laga daba tegey hiil baa u galay adigaa soo gaadhay kuwii kaa dambeeyey baa soo gaadhay inantii maalintii halkan lagu soo hoyey hargeysa ku dhalatay hargeysa lafteeda ayaan anuu uga tiriyey maanso laydhaa cawanuura waan israacsanayaa waayo waxaan leeyahay haddii barnaamijku kaa kala go'o hadhowta qaybteeda dee waa tii aan horaba ku idhi waan israacinaya markaa inantii markii ay soo noqotay waa garanaysaanoo maandeeq baa loo bixiyey maandeeq baa yaa lagu geeyey xamaalay way soo noqotay anuu cawanuuraan u bixiyey cawanuura oo cadhadii ku taallo ayaan imid waan iska maydhay waan maydhay cawanuura waan idhi cirhilaaciyo cadceed bilaney 60 ciiradii cishooyin afaratii caddaysaay cawanuuraay adoo curadoo curdin uguboo caqligaaguba cilmi aanu baraya culmoogey cadow kaafiga cabaar kugu xidhay cadradnimadii caala doqonaa kaa carjabiyo caynku kugu xidhay cid kaa goysiyo ciirsi weydi biyo calowliya cadaynaan gelin baad cantuugto in gambooriyo cayaa daaqdood ku cashiday nin ciddaadaa ku ciseeye caadi jiiftaa ku cabdhiso muddaad cadha iyo ciil la hogatee cawanuuraay cirkii guur ku caddibi jiray adoo caariday cudud midabaa ku soo celisoo caqli waayeel caan ku noqotaye ha coogcoogine gob casaado iscidhiidhiga laami cilifyadu culays midhihii sidii canabkii la soo ceriyo galool cimidhoo man xasuusiyo cadma qaarisiyo cadaad ubax badan caasha soo saar caways gobannimo carradaadii bal soo caga dhigo cawanuuraay farxadda cusubee cirkan kuu daay cagaar bixiyo cuudkii dhalay baa cusub daaqo caana lula noo qubna ciirtee carcaraadkii aadna camal samicaawa ku ilow anna ciiradii kaa caddeeyo laas cillaanliyo ceelkii maaxlaan kaa caarsiiyo caaryadii iyo caabiqii nacab carfi udugliya cadarmaydhiya kuu cusburayo ciiddii xiis baan kugu culayo cadhaguridii kaa cidaaday carmalnimadii wiil cudoonog caashaqaagii gudciroobaan kuu caruusayey caddaloolo caway unsiga caddaloolo dhallin calanliyo ciidan xooglaa kuu ciyaaree caddaloolo caway unsiga ciddida badda iyo cambar hooyo dabkan cuudka leh cantooba ku rido cigal diib iyo codcod iyo subag ku cilaamo caawa nabad iyo cisi sharafliyo wanaag ku cawee ciyow qaysho cidla joog iyo aboodo cokane kuma cawriye haddaanu cajabin cawoy in yar haddaanu cajabin ciyo dhowrtiyo caway shicibkani ha iska caariye
mid cibaadada ku caanbaxayo mid cibaadada ku caanbaxayo ya mid cibaadada ku caanbaxay baa ku cisayniye ha cabsoonine beentu caagadan run cabayso xuna saafli tal arsan iyo cirweynaha qarin cilaankii sheeg dhiilka caydheed eebka buuxsaday soo abaadkii ninkii carree caynta galay iyo canaansi fule cajab yaabliyo waa cibaare ciido wada jira amuud wadayaal caada kaliya la isku cariyi walaalaysuna coomirkii yidhi dhagar ciilkii niman cawl dirin cambaareeyey caamiye in lala dambi cadaya la ku cilayn jiray cawaankii tegey turxaan cudur iyo caydi beentu carruuraha baray carab leefiya cartir naga mari codso guusho catrad ugu biya intii curad wiil cilwisiisiga cadow heeriya naafa cagali ku caarcaartiyo curyaamada hadhay wax la cunay iyo caanasiyo agoon cabatiyo carruuraha kori caafimaad siman oo cadaaliya dadkii ku cugay caamu gaarsii dadkii ku cugay caamu gaarsii esi sharaf liyo ciyaare markad ciideed caata reebtana bisinka cusko cirka jiidho inibar kale ku carceero caadka sare gaadh sheekhiyo caaniyo quraan culimada kaaga curiyo cilmi kugu dhigay ku cashariyo taxliil caanood ku cabsiyo ku cumaamadi carab khayrlo ducaa culus baan kuu cigaalay caadil dhowriyey carshiga ilaah awey hoos joog cimri abidka casuun ku ahaw caadil dhowriyey carshiga ilaah awey hoos joog cimri abidka casuun ku ahaw waxaan ku casuumay waxaan weydiin lahaa shakay haahi waxaad moodaa in arrintu ay markaa u muuqanayso inay tahay arrin aad gobonnimada ugu xeel dheer oo weliba aad digniin uga bixinaysa marar kalena ka hadlaysa qoomamo markaa tan dambe xillimee tan dambe waxay ahayd 18 May markii la yidhi halkan gobonnimadii waa la sharfo waa la isku yimid waxaa dib baa loo soo noqday beelihii deganaa halkanna way heshiiyeen burcaa lagu heshiiyey dabeetana caynkaasi markii la yidhi ayaa anigu aan idhi marka waxaan isla keenay qaydii riyada ahayd ee hore iyo tani waxaan isku keenay waxa weeyaan inantii intay socotay inaan dib ugu noqdo taariikh way kala gob ay ugu dhici lahaa haddii aan ka soo sheekayo inantii haweeya halkeeda adigu matan marka la eego xilligii xornimada aynu qaadanay sheekay nin weyn baad ahayd marka kulli nin dhalinyaro waad ahayd oo dee 60kii halkee horta joogtay markaan xorriyada qaadan anigu waxaan joogay Djibouti joogo waqtigan kaaga sheekeynay magac halku iga baxay ayaan joogay aadna waa u farxasanaayeen nin yar iyo nin weynba qeyradu dadka waaweyn ha ku sii badnaatay aad iyo aad ayaa ma garanaysaa ay noogu farxad badnay ويا نوصل نقول حليدي دمبه واتي اللي كبابيي لابدي دين عيارها روحدي حسين واتي markii dama magacii laga bedelay ee markii dama wadanka baa ninkii aan maxay dawladii kala ay ka dhalatay marka maxay idinku dareenteen digin waqtigaas dhinaca ciyaara wali ku dhaxjay run ahaantii waxaan dareenay wax aad u kala daadsan oo sababtoo ah dad isku xidhan aadna isku jecel ciyaaraha ayaanu ahayn jacaylkan isku qabnay mar baabanu tagnay anagoo kalaabkayga isku dhan ayaan idhi war baryada intii la wada leeyahay haddana sheekh baa jirtay dalkeena sheekh Umar baan tagnay anaga kalaabkayga oo dareeskiisita wax dhacday bila rafle ayaa markaa halkan joogay dabeetana waanu tagnay waxaan anagoo waxba u sheegin wariya bilow waxaad yeeshaa maxaad inamada u baabinaysa sarbeeb hadiyo goor ka hadlay meelun ka wada ciyaaraan meel kala ciyaarkii waan soo noqonay dabeetana waa la noo yimid qoladii haysatay dawladda ayaa noo timid waxay tidhaahdeen haddii aad wada jirtihiin waxa u ciyaaraysaan gacan libaax waayo fooqan ilmo faarax joome hoostiisa ayuu ka tirsanaa kalaabkaygu ka fura markaa sidaa darteed ayaa la yidhi idinku gacan libaax baa u ciyaaraysaan gacan libaax markii aanu ciyaaray ayaa tartan baa la qabtay 4 xaafadooda dabeetana kubadii cagta ayaanu isku soo baxnay xaafadda la yidhaahdo guriya samo ayaanu isku soo baxnay finalkiina annagaa qaadnay sidaa darteed markaa waxaa jirtay abaabul kale oo guriga ka saara oo xarakaad anagu markaa noogu muuqday oo dhalintii oo hablihii iyo inamadiiba laga soo saarayo oo markaa yacni qaar guulada laga dhigo qaar dhalinta laga dhigo markaa ururka dhalinyarta ee gacan libaax ayaa anagu aanu noqonay Saciid Maygaag Samatar ayaa noqday gudoomiyaha ururka anagu xigeenkii baan noqday qolo walba waxa la yidhi halkay dhisanaysay hanuunintii ha dhisato hanuunintayadii tii oo aanu sidii kale u dhisanay ayaa waxa dhacday fikrad waxa dhacday halkii sportska ayaa manaatay basketka lagu ciyaariyay waanu isku nimid seen wax ku dhisnaabaa la yidhi markaa waanu isku nimid dabeetana waxaanu nidhi intayadii fanka ahayd dacar baa jooga markaa iyo aniga ayaa joognaa dabeetana waxaanu nidhi war aynu samayno marka haddaynu koobkii qaadnay sahir galay oo 4 xaafadooda aan samayno dabeetana lacagta halkaa ka soo baxda aynu garoonka ku samayno dabeetana sidii baanu samaynay
afartii xaafadood baanu iskaga yeedhnay annaga khatrad daahiroo markaa ardayda ayaanu u yeedhnay markaa ruwaad yaroo cali iidle nin la yidhaahdo macallin ahaa uu dhiibadoo yara hanuunin ahaydoo iskuulkooga ahayd markaa wax ka dhigtay annagana dee kalaabka iyagaba ahayd markaa waxa dhacday dabeetana hees baanu u dhiibnay heestii waxaa la odhan jiray iyadoo heestaasi ay jirtay ayaa hees yaroo dee koobkii tii aanu ku qaadnay lambar 1kiina ayadaa qaaday heestuna waxay ahayd iftiin gamala'aanta iyo gurya samaba aragne juungeeyadeeduna dib u gaabin maysee tagadoodsanee tartankii la galay giddi xaafadii gega kaga kacdee galaaskii dhexyiil hoo guddoon la yidhi waa gacan libaax markaa khadri halkaasay wanka ku qaaday waa markay fanka soo gelaysay waa markay fanka soo gelaysay fan laakiin fan iskuulun bay wadaaye markaa fan kale u waaweynaa may gelin waayahay markaa kadib waxaa jiray dee rag badan oo aad ka mid ahayd baa moodayay inaa xaggaa fanka markaa ka soo gasheenba kadib sidee baa horta waa beri ama kooxihii jiray raggu ku kala galay matalan sida caroo kale adigan isku meesha kaga sheekaynaysa haahey waxaa jirtay markii arrintaa la sameeyey ayaa waxaa dhacday 27 ayaanu ka soo noqonnay xaggaa xamar ciyaarin rijmaalaha markaanu ka soo noqonnay ayaa waxaa dhacday run ahaantii abaabul badan baa halkeenan abaabul badan may lahayn marka ciyaarihii iyo fankii waxaanu ka soo gallay markaanu halka joogno ayaa dabeetana aniga waa beri ahaan kolkaa kumaan jirin aan dacar isku nimid markaa waxaa dhacday dabeetana abaabulkii baanu ka gallay halkan koox la yidhaaho nin cumar salaad la odhan jiray oo BR u ahaa ayaa noo yeedhay aniga iyo dhowr nin oo kale dabeetana wuxuu yidhi waxaan doonayaa koox la yidhaaho halgan la yidhaah oo gulwadaasha inaad samaysaan dabeetana waan isku ururnay waxaa dhacday markaa aniga iyo ninka boon la yidhaah ayaa la noo yeedhay idris cigaal baa haystay tiyaatarka oo maareeye ka ahaa dabeetana kooxdii ayuu yidhi kooxdii waa beri run ahaantii amargooyadii waa la soo goyn doonaa waan idin qaatay dabeetana muddaanu la shaqaynay dabeetana ilaa anigu 8 iyo 7 baan la shaqeeyey aan la shaqeeyey fanka aadna waanu jeclaa aadna waanu necbaa marka maxaa matalan oo kale qaban jirtay markaa aadan oo adigu waxaan qaban jiray had iyo goor ruwaadaha waxaan ka mateli jiray meelaha yacni yara tuufotooraha iyo meelaha yara ma garanaysa ayaan ka mateli jiray run ahaantii markaad sii eegtana iyadoo imiga aan ceeb weyn u haysto laakiin haddana aan ceeb ahayn rag ku takhasusayna ay jiraan oo dee sidii kuma tegey waxaan mateli jiray islaantana waan mateli jiray islaan weliba cawaandiyadu aad dadka ugaga ma garanaysa oo mar halkan ruwaayadii la odhan jiray nin qasbaay jacayl ma loo quuri karaa mar baaba aniga ereyadaydii laygu xidhxidho halkan waxaa jirtay nin qasbaay jacayl ma loo quuri karaa waxaa ku jirtay aniga iyo saare axmed iyo saare axmed hooyadeed baan ahaayoo maxaad markaa samaynaysay waxaanu samaynaynay ruwaayaddu waxay ka matelaysay minatariga iyo waxay matelaysay nin abudabi ka yimid marka inantu nin minatariga ayay jeclaanaysay ninkaa minatariga ayadoo jeclaasana nin abudabi ka yimid uu qaadayay dabeetana lacag buu odaygii siinayay dabeetana markaa waxay ayadu ku dhaadinayso had iyo goor lahayd oo adigan heesaan arkay 2 heesood oo ay aad ugu calaacalayso ay midna leedahay qudha haddii aan waayana qabrigaa la gelaya ay leedahay ma garanaysa qadar dhacay quraan iyo wadaata ay leedahay ta kalena ay leedahay sida wagan gamaan oo la miray waaga tiigsadayay wehelkay ay leedahay markaa way xidhnayd oo waan xidhay markan xidhay heesaha qaadaysay laakiin heesta ugu dambeeya heesta hore waxaanu iska erinay nimankan yidhaa ciidamadaba oo anigu aan markaa lahaa abudabe noo kaalay adiga kabahaagu noo kaalay askariyow naga tag adiga kabahaagu naga tag waxa dhacday arrintaasi markan sii dhaaya qolada reer abudabe aad bay maxsuumi jirtay qoladan militariguna dee rag lacag bad qaadan karta may ahayn way yara garabkay ugu yara dhufan jireen laakiin waqacadi waxay ka dhacday markii aan ruwaayadii wadnay ee aanu joogno berbera ayuu maan askariyow naga tag adiga kabahaagu naga tag abudabe noo kaalay dabeetana waa lana xidhxidhay waxaana la yidhi waxaad u yeedhaysaan dawlad shiciba tan askartana waad kaxaynaysaa dabeetana ayaa yidhi sheeka ayaa arrinta soo saaray aduu arrintii waxaa lahaa ninkii la odhan jiray cabdi cali weyd baa riwaayadda lahaa waanu maaraynay waxaa la yidhi ka daaya abudabe noo kaalay askariyow noo kaalay un lahaa askariyow noo kaalay un dhaha dee wixiina xarakaad yeelan maayan wax la isku jiray haddana jirin markaa riwaayadda waxay run ahaantii intii riwaayada dhigayay noogu lacag badnayd waayo ii dhibaayo hargeysa markii hore galbeed baanu uga saaray dabeetana bari baanu uga saaray hargeyso aad u muhanaysa beerta xorriyadda lagu dhigayay ayuu diris xigaal yidhi waa riwaayadii nin qasbaayo jacayl ma loo quuri karaa rikoodhada soo qaata khadaro waad aragtaan u malaynayaa barta lagu ciyaaro baasket wada rikoord buu noqday koronkoraad moodaysa soo maad garan waa la duubanayay 11 habeen oo isku xigta ayaa aan riwaayadaasi ani isdhimin waana riwaayadii noogu lacag badnaa oo la soo buuxinayo
soo garanaysa ruwaadda doonidii jacaylka ku jirto waxa ku jirtay qadar lacag quraan iyo wadaado waxa ku jirtay wagan gamaano waxa ku jirtay cirku sagal daruureedo doonidii jacaylka ku jirtay ruwaaddu waxay heeseeguna ay tayo wanaagsan leeyihiin allah naxariistay aktarin wanaagsan way matalaysay waxa jiray ninka gujis la yiraahdo ayaa asagu gabadh askariyeedu asna qabay xarakaadka meel gooniya ayuu asaguna ka waday askaradii digtoono le oo ay leeyeen ana ku qabo ku sareeye si digtoon aniga ay digtoono u leeyahay oo disbilxnoo ma garanaysa dadku wax yaad iyo goor iyo abdabe naga kala iyo xarakaadkan isku jira ninkan shabdada sitee lacagta sita marka riwaayadaha iyagu had iyo goor waxa jirta caadi riwaayadaasi allah waxa wax tilcab caalawida ha miya lagu tumi kari ama miya lahayd waxaan jacaylun baa riwaayadu caadiyan mise wax kala ku jira سيد دكتاتور كحلقة دلك هيستون با شكل كلا كدقية عشان تدك تعال بقول. ما أنا رناهانتي عبد علي ويد بالها وحويان فؤاد وتعالون بهاي تساعة تعدي ميل وحكي سوق اللي كرتو هذا الكوا مرجي بالليل مرجي جوا كل بس ميل ورجو حركات كان أنا وان كدر صدق أبو دبي نو كالايا يا عسكري وما قصدك يا معنا ينو جوني السمية ما كان معناها جوني قال نيو اللي بورني واربلوحن عسكري اللي جوعريو سواء سومالي إن أنا وادرك هذا يجور ficilka waxay eegtaa waxa oo bas isku soo horjeeda dadkan duubanayeen kala aadan oo ka dhaxgalo dadkaas kordhada soo qaadan duwan ma dhalinyaro ay ahaayeen ma rag ba ma dumar ba mise waa xafada dadka caadi ah ma dad dhalinyaro ah aynu xitaa bariga waxa jirtay Djibouti oo had iyo goor heesayna ma garanaysaa ruwaadeen xiisayn jirtay ayaa qolooyinka halka istuudiyaha kulay intay yimaadaan ama dad soo dirtaan ee lacag soo kharashkeeyeen kulba riwaayadii jirta ay gabigeeda wada duuban jireen markaas xagga ku kala saafi jireen oo ma garanaysaa riwaayada qaar ba codadka cod kale inta meel lagu sameeyo codadkuna ay naga bixi jireen marka waxa jirtay in xagga Djibouti ay had iyo goor laakiin khadar oo had iyo goor waxa jirtay maxaa ku wixii halka adiyo booniyo markii dambe maxaa ku xisay riwaayadaas waxaanu ku xigsiinay 76kii ayaa waxa dhacday 78kii aakhirkii ayaa waxa dhacday tiyo aan la gaarin ayaa riwaayad la oran jiray geediga koowaad oo Djibouti ay waday oo ahayd gobonnimo doon oo yaa dabeetana aniga iyo boon aanu raacnay waa la nagu daray dabeetana qoladii reer Djibouti aan wax kala matalay dabeetana markanu sidii aan wax kala matalay ayaa dabeetana ayaga gobonnimadoodu soo dhawaatay dhowr ma garanaysa ilaa xamar ilaa dhulkan oo dhan la soo mariyay hargeysa markan joognaa ayaga leeyahay soo baxa wayo 77kii 76kii baa yaa mar wafdi noo yimid ayaguna waxay yiraahdeen 76kii marka bishii shanaad meelaha ayaa lagu jiray markii aan wax la dhigaynin marka taar baa soo dhacay anagoo burco iyo aan geynin oo marka uun xagga sidii aan uga keenay aan ma garanaysa berbera habeen ka soo dhignay ayaa wax dhacday soo baxay dabeetana halkii baan ka gaarnay dabeetana markii aakhirkii ahayd anu xaggan fankii dib uun baan u yabaalay waan ka yara oo gaabsado aniga dabeetana waxa timid riwaayad nin yaroon walaalanahay oo qoladii xiiranayaasha lagu daray 77kii ayaa saylac la geeyay askarta dabeetana fankan ka hor joogay muallif buu ahaa dabeetana ninkii baa dabeetana riwaayad ka soo abaabulay saylac riwaayad la yiraahdo jacayl maaliyad waaye meherkii ma amaha oo aad u cajaayib lahayd qisadeedu ayuu ka soo abaabulay halkan uu keenay iyadoo dawladda oo dhan wadato gudoomiyihii xaggaasi ma garanaysaa saylac dabeetana halkan uu keenay aniyo boon aniyo waxaan u jeedaa ninkii la oran jiray meecaad oo meecaadna reer awdal buu ahaa yaa ficliyan riwaayadii dib u habaynay habkii baanu dabeetana aanu dhisnay riwaayadii ilaa berbera ilaa halkan aanu ka dhignay nuxurka xambaarsanad waxaa nin wuxuu ahaa marka nuxurka aan ka soo qaado nin intuu halkan ka dhoofay gabadh ay isticlaayeen dabeetana wuxuu dhoofay dibaddu tagay tacabur buu tagay lacag buu soo shaqaystay lacagtiisii shamdad buu iskaga soo qaatay gabadhii wuxuu waynu aqal galaynaa airportka igu sug airportku yimid dabeetana airportka shamdadii markay gabadhii isku dhigeen ayaa niman tuugii shamdadu eeg ay u dhigeen dabeetana halkii uu shamdadii qaatay tiina tuugtii baa la tagtay uu soo dhaadhacay dabeetana waa meeshii finish maxaynu samaynaa buu waa tan waa layna magaranaysa dabeetana wadaadii noo geebay noqotay wadaadkii markii loo geeyay baa la yidhi wadaadoo gabadhan ii meheri gabadhii buu meherkii ugu daruuray markuu meherkii ugu daruuray wuxuu waxa ma hayne meherka nagu lahaw ma mehersanadin buu markaasuu sheekh baa yidhi ma mehersanad haddaan lacag laysiinay dabeetana waxa dhacday qisadii ugu weyneyd baa dhacday dabeetana hees bay halkaa ka qaadayeen la yidhaa ilaamaa qiyaamaha waa anagu waan isku mehersanay ilaamaa qiyaamaha dembiga adaa qaba haddaanan isku mehersanayn wixii aanu samayno adun baa qaba ila markii hore adigaa isu kaaya meheriye markaa riwaayadda waxaa la odhan jiray jacayl maaliyad waayey meherkii ma amaahday marka waxa dhacday marka dambe inantii iyo inankiiba profession shaqo uu sameynayay halka ka dhaxgal iga dhaxgal waa xiisa la runtii laakiin riwaayadaas oo kale ma la oran karaa maanta oo kale ayaa maxaayeen sida maanta oo kale arrimo badan u jiraan ma dhalinyarada dhaqaale xumada iyo shaqo la'aanta haysta marka laga shidaal qaato
رواية سيمان تابع سيسة هذا سيما ما تتاجد ما لونا كرنا يعني وكاسيو ده وحويان أفكار عن اللي هو قمة ما دوران لكن أنا قاعد سليم مركز جت شوتشين سواء كسر سعودي إيه وحويان ما أنت تاجن تاي كنا هانتنا اللي أنتوا هدي على الله يقدرتوا ده إلهي بقى قول الكتشاحي وإحنا جالين كرا لبض قفنا إسكو أستوري كرا واي ما أنت نوي كنت تاجن ما أنتنا إن أنت فكرة بيكنتي واي تروار هذا ما أنت وحوي أبهاي وكانوا ده وحويان وانينس كمال قبينا وإحنا نوجموا بعنا لكن وحن أورنا يا أبو من هدي ده هل ولي بحالك كل شوال نسيب كده أنا جالس أدون كي أنقاق الجلة هنا أنا وجد عمين لكن وحن دوني يا إن العك فرق بسينة أدنى عواهيسو أنا نسكسو علنو ما كان مهرك بقى العواهده ما قرنيس العك اللي أبيت كام هنيسا دبتنا إن كي ميل موفو إسكا سماي سنايا موفدي وكعيسا دبتنا كامو كسماينيا العك نسك علني ما كان وين على ضيق أبيت نوي كام هاد وتعلم عليه وهي مهرك ما واحد الكي مهركين ولا كام هاد يا marka saas bay tahay had iyo goor in ma garanaysaa dhalinta imigu ay ku dhiirato waayo sababtoo ah daw ilaahay ba aniga qudaydu markii ugu horeysay sayilcabaan bariga ku aqal galay oo aan ma garanaysaa markii ugu horeysay taas oo kala bayga anu waxba haysan baan mehersaday anu waxba haysan ma garanaysaa waxa laga yaabaa markii ay umushay dacdo hooyadeed ku umushay waxa laga yaabaa maalintii ay 40 baxaysay aqal aan uga dhisay sayilc oo marka xagan xeebaha deedaari wax lagu ma yaqaan oo sanadqadeenan oo la maqsin ay ku soo 40 baxday iyadoo inan sideeta magac weyn wixii ilaahay ku og yahay waa wax iska jira laakiin wixii arkayaan baa ilka gooyaan laga gudbaan leeyahay barnaamijkan inuu ku soo gabagabayno qaybtii xiisaha badnayd ee dhinaca dhalinyaradan goobahan jaadka lagu iibiyay xilliyadii hore dumarka waadigii sheego dhaqaniyan ragga iyo dumarku meelo badan baa lagu kala fogaa laakiin xilliyada waxay moodaa wax badan dhaqanka xagga dumarka iyo ragga ay iska bedeleen marka halka inoo taabo inoo soo gabagabayno ku taabtay khadarowe haddii aynu darandooriyayno barnaamijkan way arag wax weydii waxa laga yaabaa horta waa bad oo badana kolba dhan baa lagaga dabaasha inagu waatan horena u sheego kolba dhan baynu ka yara leexin doonaa waxaan arkay dhaqanka hablaha waagii hore oo xishoodka loogu fooldhaqay inamaduna ay had iyo goor ilqoor inay ka eegaan mooyaane intay soo qaabilaan anay ma garanaysaa sida waqtigan loo socdo aanay u socon ama hiigsadkooga iyo doonistooda aanay bareedho u caddaysan karin marka waxaa dhacday ciyaaraheenina hiddi iyo dhaqan baynu lahayn hablaha marka la ciyaarayo qaradka ugu weyn ballanta ugu weyn waxay ahayd meelaha lagu ciyaarayo la iskugu iman jiray afkana laga haasaawi jiray marka had iyo goor inanka heesaya wuxuu ilaalin jiray hablaha kuwa daba joogsada marka waxa jirtay maansa oran jirtay oo oran jiray kuwa dumarka daba joogow madayn baa ku leeyahay khadarow anigoo taas soo gaaray baan tuka dambeysay soo gaaray oo ilaa intan aan Djibouti ka soo noqday aan qaxootiga ka soo noqday waxaan arkay meel dalaalimo ah oo inta la dhigo kolay waliba looxa kolaygeeni hore ma ahayd dhaqanka oo sidii ay noogu bedelayna kolay looxa inta la dhigo xagga dambana la sharaxo dabeetana uu ninku xagga dambe soo fadhiistay inantii qaadka hore xagga hore ku iibiso dabeetana halkan uu ku qaylaya dabeetana inantii halkan gambar bay ku fadhida gambarkii ay ku fadhiday ayuu qaadaya kolba inantii de ma garanaysaa ayuu qaadaya halka dambe ka dhirbaxay mijin la soo saaroonaya hadda idib khatray mijinta idib inantii xagga dambe ka dhirbaxay dareenkeedii ayadu mijintan iib kuma ma garanaysaa hiddihii iyo dhaqankii oo isbedelay baan arkay marka nimankii waxaan bal hadda sahanka meesha ku jira aad la aragtide wax weydii baan sidii khadro waxaan dalaalimadiyo diiradayski iyo bariye dabadood ragii degadow dadabeel iyo duxdii subag iyo doog ma haysa mise dadarti iyo dab la shiday baad daawanaysan wali wax iiga jawaaba ma arag soo garanay alla ilaa waxaan arkay waxa igu yara garaqsaday qoladan wanaag farista iyo xumaan reeb ayaa anigoo maansada horeba u tiriyo dadka ku magaranaysa ayaa iyaguna sii cadeeyeen oo yidhaan kuwa xagga dambe ka fadhiista dumarka xaq maaha way xun tahay gabadhu waxa weey had iyo goorna marxalka waxa jirayay darwelinteena hore dumarka waxa weeyaan sideena ma qaawana oo inagu waxa weeyaan waxaanu ka qaawanahay run ahaantii inaad markiiba intaad gaariga oo socday intaad iskaga degto aad banaanka geedaha u kaada tagto ayadu koornayso waan ka tagayaa noo jooji هذه قردر وينتين مرحل بيتشو شنو حنشرين ميل كين لا إنت اللي تجان يرون شرا دمر كسر ده دقو ميلها مقرن سبل سكيرة مراسلة الأورنجين مركارون هانتي دين يدغن كونه آد بو شرف لها حشود يميل قولها إما كانوا حوي وحنلاها خلقون نقضوا أيه هذه يقور أنا اللي أنت قدر داري هذه أدد ما صدق هي هذا شامع سويان شاكية أو برنامج كواي أرق وحوي